barnaamijkan oo ay si wada jira usoo qaban qaabiyeen TV-ga qaranka iyo shabakadda caalamiga ah Harwanaag News. Dhegeystayaal waxaanu weydiin doonaa su'aalo doora oo ku saabsan arrimaha dibadda iyo sida ay u arkaan qurbadjooga Somaliland, sida ay maanta dowladda Somaliland ay u wado siyaasadda dibadda iyo in ay ku qanacsan yihiin. sidoo kale waxaan rabnaa iyadana inaan wax ka weydiino mowqifka cusub ee ku soo kordhay jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo hadaladii uu dhawaan ka jeediyey safiirka jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa u qaabilsan Somaliland iyo Soomaaliya magaalada Hargeysa, kaas oo ay mar hore madax badan oo Somaliland ka tirsan ay shaki muujinayeen oo ay lahaayeenba cadow ayuu ku yahay Somaliland, laakiin maanta uu ka dhex yiri Hargeysa in Somaliland uu taageersan yahay inay hesho ictiraafkeedii. marka inuu barnaamijkeeni bilaabanayna aan ku soo dhaweyn jiray Xaashi Ismaaciil mikrofoonka. سعيد والله waxaan salaan hawada u marinayaa anoo ku hadlay magacayga iyo magaca guud ahaan jaaliyada qurbadjoogaba mar haddii ay tahay fursadii ugu horeysay ee si wada jira TV-ga qaranka Somaliland iyo Harwanaag u sameeyaan guud ahaan ummadda Somaliland anigoo leh ilaahay nabadda iyo barwaaqada ku jirtaan hay'adu ku garab galo waana loo hay Saciid barnaamijka inoo waayahay engineer waxaan ku weydiinayaa maanta dalka dowlad cusub baa qabsatay oo hadda sanad iyo badh muddo haysay xukunka waxyaabo badan way bedeshay waxaana ka mid ah siyaasadda dibadda oo ay runtii isbedel weyn oo la dareemi karo ay ku keentay ama ku samaysay taasoo keentay in dad badan ay qaarkood shaki badan ka muujiyaan oo ay marka qaar yiraahdeenba waxaa loo socdaa Soomaali weyn. marka adigu mowqifka cusub iyo siyaasadda cusub ee dowladda ay la timi sidoo aragtaa? والله سعيد ومرر هو بدنا شخصيا أنا أقول كذا وشيء horta dee nidaamkii wal ee yimaadaaba wuxuu la yimaadaa fikradiisa iyo siyaasaddiisa caddaan bay ahayd waqtigii ololaha doorashada uu ku jira xisbiga kulmiye ee maanta talada dalka haya uu hogaaminayay madaxweynaha Axmed Maxamed Siilaanyo marar badan ayay sheegeen oo ay barnaamijkooda siyaasadeed ku jirtay tallaabooyinka ay ka qaadi doonaan siyaasadda arrimaha dibadda runtii qiimeyn haddaan ku sameeyo siyaasadda arrimaha dibadda ee Somaliland waqtiyo kala duwan oo ka horreeyay waqtigan halkii ay soo martay ee maanta halkay marayso wax isu dhow maaha. Somaliland muddadaa gaaban ee dowladdani jirtay waxay ka qayb gashay fagaarayaal badan oo caalami ah oo aan hore loo tagi jirin. waxa u yimi wufuud heerar kala sarreeya ah oo aan weligood hore u imanin oo ilaa heer wasaarado sare oo dalalka reer galbeedka meel walba waxaad ogtood markhaati ka tahay inay ugu dambaystii xitaa Masar oo ahayd dalalka inoogu fog marka laga hadlayo Somaliland wufuudi ka timi maalintii dhaweyto waxaad ogeyd socdaalkii madaxweynuhu ku galaabixiyay dalalka Carabta ee Khaliijka de waxaasoo dhan markaad eegto waxaad arkaysaa Somaliland in shalay halkay joogtay maanta ay kor uga soo kacday, taasna ay la timi siyaasad furfuran oo arrimaha dibadda ah oo ay xukuumadda cusub la timi oo ah inaan awal meelihii laynagu matali jiray inagoo ka maqan hadayo gooraale ciddii rabtaa sheegi jirtay ama la oran jiray Somaliland goonistaag ma rabta ee siyaasiyiin baa rabta wixii oo dhan inay noqoto inay goobjoog ka noqdaan wax kasta ha ku qaadatay ayay ku dadaaleen waana ku guuleysteen waana ku garab taaganay. waayahay Mahiga ama ambassador Mahiga sidii aan hore u sheegnay wuxuu ku baaqay adduunka ugu baaqay in Somaliland la siiyo taageero ay ka mid tahay ictiraaf oo adduunka kale ugu baaqay. hadalka Mahiga ka soo baxay ma waxaad u malaynaysaa inuu yahay mid isaga ku kooban mise waa mid wax og oo laga dambeeyo malaynaysaa? Mas'uuliyadda horta hadalka runtii ma hadal ku koobmi kara ambassadorka waa wakiilka xogeeya guud ee jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa ee Soomaaliya iyo Somaliland iskamu iman hadalkani Mahigana kamu iman gaar ahaan shakhsiyaadna maaha waxa weeye hadal ku yimi shaqo adag oo aan siinayo mar labaad maxay ahayd wanaageeda xukuumadda maanta jirtay oo hogaaminayo Axmed Maxamed Siilaanyo iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda gaar ahaan oo labadaas shaqadii arrimaha dibadda wasiirka leh
ay u tafaxayteen sidii ay Somaliland uga saari lahaayeen go'doonka ay ugu yimaadeen ma dhaliilayo cid hore mana raba inaan cid ku eedeeyo oo ilaahdo mar haddii qurba joog ahaan iyo aan la hadlayo dalkii aynu dad waxaan la hadlaynay dadkeena yihiin eedayn waa laga fiican yahay laakiin waxa weeye wixii wanaaga lagu talaabsado qofka ku talaabsaday wuxuu leeyahay maado waa la sheegaya waan gartay ma laga yaabaa mowqifka cusub ee ay qaramada midoob ay la soo baxday in ay wax ka bedesho mowqifkii dowladaha kale gaar ahaan Afrika iyo dowladaha Carabta waa qasab jimcada qurumaha ka dhaxaysa waa jimcad ay caalamku dhamay isugu tageen oo ay isku bahaystaan ay isku kaashadaan waana meesha loo wada socday eragan hadiyo goolaalo dhowr iyo 20 sanadood ku daalay aqoonsiga macnihiisu waxa weeye inuu jimcada gallo jimcadaas inay aqbasho jimcadana waxa ku jira waa qaramaduna jimciyada way u hoggaansamayaan ama way dhageysanayaan wixii tala ka soo baxda sidaa darteed waa guul Somaliland gaadhay in xogayaha guud ee qaramada midoobay wakiilkiisu si bareera u yiraahdo hal aqoonsado iyo hal caawiyo iyo hal gargalay taba iyada waxa la sheegayaa maadaama ay intu tahay hay'adii ugu sareysay caalamka in ay dowladaha adduunka majority-gooda ay ka xubno ka yihiin maadaama iyadu mowqif ka qaadatay in laga filayo dhawaan gobolada kale ama maamul gobolada kale maamulada sida jaamacadda Carabta iyo ururka Afrika iyo IGAD iyo ka khaliijka bayna iyaguna mowqif la mid ah qaataan marka sidoo aragtay adigu waxa baan oran karaa IGAD oo kale horaabay u qaadatay iyaba ku dhawaaqin Somaliland inay tahay qaran gooni isu taagay laakiin siyaabaha ay ula shaqeeyaan haday tahay jaamacadda Carabta haday tahay IGAD iyo haday tahay dowladaha jaarka ah Ethiopia iyadu waa badal saaxiib aad iyo aad Somaliland la ahaa laakiin Kenya oo kale ugu fogeydiyo Djibouti oo arrimo gaara hadiyo goor xeerinayso ka gaabinaysa inaan la oran qarankan Soomaaliya iyada si kala wadayo kulligood mowqifkooda labadii sanadkii barkii u dambeeyay wax weyn bay ka bedeleen arrinkan wax weyn ka sii bedeli doona waan gartay maxaa looga baahan yahay shacabka Somaliland iyo dowladda Somaliland ba inay sameeyaan sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen isbedelka ku yimi siyaasadda caalamka shacabka Somaliland iyo dowladda Somaliland intaana waxa looga baahan yahay sheegin waxaan sheegayaa dowladda marka erayga dowladda la yiraahdo dadku xukuumaddu bay arkaa dowladdu way ka ballaarantay xisbiyada siyaasiga ah ku jira hay'adaha aan maxay ahayday NGOs ka ku jira hay'adaha bulshada u adeego dhan kale ku jira ururada bulshada ku jira waxa ku jira dhalinyarada jaamacada wax walba waxa habboon in halka maanta la soo gaaray ee ay marayso siyaasadda gaar ahaan arrimaha dibadda Somaliland si wada jira oo turxaan lahayn oo siyaasadaysnayn oo tartanka ku jirin anoo waliba raba inaan afkayga ka ilaaliyo wax turxaana tartanka siyaasiga hadiyo goolaale mushkiladu leeyahay waxa inagu cusub xisbiyada inagu cusub waxa inagu cusub ururada inagu cusub waxaan oo dhan baaynu waa inaan horta markii hore ogaanay inaan socod baradnahay socod baradkaasi inala gelin inaanu ku turunturoon siyaasadda arrimaha dibadda waa in si taxadir leh loo wada arkaa wixii dibadda ka jira wixii gudaha ka jira bal aynu lagdanaba oo laakiin waa inuu ogaado qof kasta waxa uu u tartamayo hadduu urur cusub samaynayo waxa uu doonayo haddii uu xisbi hore ahaa waxa uu ku socdaa inuu hoggaan u noqdo waa dalkan Somaliland dalkii haddaan laga wada shaqeyn si dal looga dhigi lahaa wax loo tartamo ma jiro waxaan aad iyo aad runtii ula yaabay marar dhexe oo arrinkan ninkan aynu ka hadlaynay mahiiga nagu soo dhex duulay hadalkiisu in meelo aan la gaarsiin karin weliba anigoon shakhsiyaad magacaabin dad waaweyn oo maanta waddankan rabaynaya ama madax hore ka ahayn ama madax labaad oo ka sii sarreysa halka ka noqdaan ay iyagoo eegaya uun tooda shakhsiga ah ama markaa uu ka faa'iideysanayo mucaaradadaad moodaa Saciid oo lafteeda in khalad laga yara fahmay mucaarad iyo qaran dumista waa kala jaad inuu qofku qaranka dumiyo maaha wax soo mucaaradi kara mucaaradku waa dhismo had iyo goorna waxa loo sameystaa in lagu soxo khaladka dawladdu gasho marar badan baa laga talaabay xaydaanka waxaan oran lahaa Somaliland saaxiibo badan dibad ma laha marka loo eego qaran ahaan intii ay jirtay war midka aynu helo ama ina soo raaca ama qalbigiisu inoo soo jeesto baliyana inagu qalbiga ka madoobeyn waayahay
هذا الشيء وحنا كم قلّا حسبية ذا معارضك يعني قدرت كلا أقوياء هنبا إن أي دولة كل جد سياسة دي بدأ أي قاعد تكون هايسو هدي اعتمادنا وكل جد قابلسو مركا مية حقوليين إن أي دولة أي مرول بوشة كتوم ماشي وحمرنسو هي سياسة دا سيد وسامينسو مثل دولة أمبا يعني أي واحد تاي شقوتها الله سعيد هورتا marka danta guud ee qaranka laga tago dawladda xisbi baa ay ka dhisan tahay xisbiga talada dalka ku guuleystay xisbiga talada dalka ku guuleystay wada tashi inuu la sameeyo asxaabta kale waa asab haddii nin khabiiro oo xisbiga imika example hadii uu soo qaadana saddex xisbi dalka jira uu ku jiro nin khabiire oo aan dawladdu ka maarmin sidii maxamed rashiid oo kaleba madaxweynuhu ugu magacaabay xilka wasiir dawladda arrimaha dibadda ولا جماعة مرمان ولا كلا قاعدنا ولا كلا أماني سنية لكن هو يفولنت قانك وقل سياسة أرمها الدبدة يتجودها بقى دولة دمركها شوكتي حسب دمركها شوكالها هديك لا إنك لفت إنها هلا عندنا كل حساب طلوا وهدي صدق هدي ما لهم البن بدحونه ويارو عديو وضب ويارو ويلهدو حيني سكرتيري شنغال كنيكي متلي أما حيني يونسيف نيكي متلي ما حينو كيلا هورتا وحوي مرقي محمانية waxaa badan ay ragii wax karinayo maraq xun bay noo soo saaraya hadhowna cidina la xisaabtanay hilmada dadku ma fahamsana qaar badan oo marka waxa soo kala dhacaan ka daba qayliyo ilaa xisbiyadii baan loo yeerin haday fahmeen wax way dan inooguma jirto dadweyne ahaan in saddexda xisbi mar wada fariistaan waa inaynu helaan nin aynu u raacno wixii khaldamay wixii sax ahaaba marka waxaan taagnaa anigu mowqifka wada tashiga laga tigmay Soomaaliland oo ku soo caana maasha meelo badan oo qofka waftiga hortiisa ahayn baan la isku arki karaa oo lagu wada tashan karaa talada la isku soo dhiibi karaa xisbiyada mucaaradka taladooda ha u dhiibtaan xisbiga markaa talinaya birta haday u ictimaado kulmiye ha u dhiibto waan gartay xisbiyada mucaaradka waxay iyagu shaki ka muujinayaan daan dib ugu noqono su'aashiina hore habkan iyo nidaamkan cusub ee dawladdu ay u gelayso siyaasadda cusub ee hadda caalamka marka bal adigoo ka aqoon-yahanaan maxaad yani u qeexaysaa oo ma u caddee iyaga iyo dad kaleba sababahay dawladdu ay uga qayb gelayso shirarkan kale ee Soomaalida midnimada baa kaga jira oo waxyaabaha shaki ka bixinayaan bay ka mid tahay taasi oo ay leeyihiin waxaan rabnaa inaanu ogaano dawladdu meesha waxa ay tegayso shirarka maxay uga qayb gelaysaa marka bal adigoo aqoon-yahanaan bal noo sharax dawladda maxay tahay mowqifkeeda cusub midii inay khalad iyo mugdi gasho maaha xukuumad baa la doortay markaa ninka iska dhaadhiciy xukuumaddan ka ilaalinaya halkay tegayso de waa nin raba in gaari lagu kaxeeyo oo haddana isagu waxay noqonaysaa sheeko ah ihag oo aan kaa horeeyo qofka markaa ku hagayaad u dooratay inuu ku hago waad daba soconaysa haddii kale sheekadu isweydaar baa dhacaya taa marka laga tago xisbiyada mucaaradka iyo Somaliland dadkeeda waxaan u sheegi lahaa mar horena anigu aan idaacada radio halwana ka sheegay burta baqdinta aynu iska saaro meel ila geynayo iyo meel harsan oo Somaliland ahayn ma jirto dalkii Soomaaliya la isku oran jiray jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Soomaaliya Somaliland ba horta ka badbaadin doonida degtay marka taa laga yimaado mahma baa jirta Saciido aan ku yara dheeraada hadalkee caruurtu marka reer miyi ma yihiin laakiin waan xigtay geedigu guurayo hadayo goor caruurta waxa lagu yiraahdaa haddii aad ka hadho dhaanka ama geediga waxa ku cuni doona reer guuraraac una wax jira maaha caruurtu aad bay u nacday reer guuraraac maalin hadday helaanna way ka takhallusi lahaayeen caruurtii waxay go-aan isugu geysatay colaad reer guuraraac ninkaa la yidhaahdo ama naag wuxuu doona ha ahaado ama baal ha ahaado reer guuraraac caruur way nacday mahmaabay Soomaalidu ka samaysto waxa la yidhaahdaa reer guuraraac iyo caruur waa col ismana arkaan horta waxaa la inagu xuuxinayay meel la ina geynaya meel naga horreysay mid ma jirto Somaliland dadkeeda goostay dadkeeda dhistay alxamdulillaah rabbil caalamiin bay ku jiraan war ninkii siyaasad iibinaya ama xukuumadda markaa jirta eedaynaya hadday mid hore ahayd hadday mid kale tahayba horta waxaan ahayn meel baa la ina geynaya hala yimaado golaha wax kaloo jiraa ma jiraan bal inagu aynu salka dhigano taasaan runtii oran iyada haddii aanu eegno qolinka Soomaaliya
runtii aad iyo aad bay uga biyadiideen sasna ay uga qaadeen hadaladii ka soo baxay Mahiga iyaga oo ku tuhmaya inuu say iyagu yidhaahdeen Soomaaliya uu kala goynayo kana dacwooday marka adigu maxaad oran lahayd markaas reer Soomaaliya marka qaar oo ma hadlaqaayo waxaad muddo dibadaha dadaal badan oo ay ahayd qurbo joogana aan ku jiraba inaynu sameeyno ay ahayd oo aynaan sameeynin iyagaaba inoo sameeyay meelo badan oo warba inaga hayni dacwadooda inaga war helaan marka qaar dacwada ay inaga dacwoonayaan noogama wadarto Mahigana de sidaa u dacweyn jireen ururadii hore ama dadkii hore wax nala qabtay UNICEF bay dacweeyeen care bay dacweeyeen hay'ad ka hawl gasho Somaliland oo aan dacwad ku iman intuu waqti maalintii dhow wasiirka gaadiidka iyo hawadu inuu Canada yimi oo cirkii la isku haysto oo dayuurad dushaada maraysaan nin ma hada arrin laga wada hadli karo marka runtii aan waxa la dacwada Somaliland cidii aan hayn dacwadiisa Mahiga iyo cidii la mid ah in taakulaysa wax cilmi badan ku fadhidan maaha laakiin waa in inaga nabad galaan oo taageero inaga helaan waliba mar labaad baan ku celinayaa war dadka dalkan raba iyo qarankan inay ka taliyaan maanta ninka raba inuu u tartamo madaxnimada hadduu maanta xogayaha guud wakiilkiisa caayo cambaareeyo berrito hadduu dalka qabsado siduu yeelaya siduu soo shukaansanaya yani ku adkaanaynin marka qarankan in ciriiri la geliyo maaha baqdin la geliyana maaha horena waan u sheegay runtiina waan ugu mahadnaqay suldaanka guud ee beelaha Somaliland Suldaan Maxamed Cabdulqaadir eray buu helay ninkuna hadduu erayga helo dee hadda isticmaalayso waa loo qiraa siyaasadii containerkay dawladana ka jabisay Somaliland ee arrimaha dibadda container dambe umadana gelimaysa ninkii wax kale la imanaya golaha hal yimaadoonahay xamar baa layna geenayaa iyo cali baynu la hadlaynaa iyo cid aynu la hadlaynaa ma jirto waan gartay kulli maadaama aan mawduuca ka hadalay dad waxaa jira reer Soomaaliya oo aan iyagu ka soo horjeedin madax banaanideena ama madax banaanida Somaliland oo si toosa iyo si dadbanba u hadla oo meel kala gedisan jooga waxaana ka mid ah xitaa madaxweyne Caalin oo ah madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug oo Harwanaag News ay kula yeelatay waraysi magaalada Minneapolis oo dhawaan ku mariyay fasax ama booqasho ku mariyay inuu yiri anigaaba safiir u ah Somaliland oo gaalkacyo u fadhiya wuxuu kale ku soo taliyay oo talo ku soo jeediyay in dadka reer Soomaaliya aan laga maqnaan meeshii joogan loogu tago lagana dhaadhiciyo loola shukaansado loo sheego wixii laga doonayo si looga helo taageero qarannimada Somaliland oo sidoo hadalku yiri marka miyaan kula haboonayn in xiriir ay dawladdu maadaama siyaasadeedii bedeshay ahayd container saad u sheegtay inay la xiriir la samayso dadkaana oo iyadoo wax badan iskaga xidhan yihiin inay xiriir la yeelato mid waa cadaan وانا أمسناهي مال كستو الله مرة كريه وحقبت كقرن iyo maxay ahayd helida dawladnimo buuxda dawladnimo way haysanaa laakiin dawladnimo buuxda wax shuruud ayaan lagu xirin waa la tagay xilku dawladda ma saaray kaliya wuxuu saaray qof kasta oo Somaliland oo qof ka dhaadhicin karaya ama fahamsiin karaya inuu horta ololaha qaado dad badan oo reer Soomaaliya oo aaminsan ayaa jira laakiin waxa weeye horena waynu uga hadalnay maaha in khalad labaad siyaasadda Somaliland ama mowqifka haddana dib loo geliyo cid ay ku xiran tahay si gaar ah ugu xiran tahay inaynu la kulanno Soomaaliya dan waxa ugu jirtaa inaynu iyagii inagu wada hadalno iyagana dan baa ugu jirta inagana dan baa ugu jirta waayo waynu isa surana macnaheedu maaha ka soo qaad Soomaaliya degtay Somaliland bay aqoonsan weeyeen maxay noqonayaan qaran ma noqonayaan waxbayaan been la isu sheegay cid gaar oo qaran loo aqoonsan yahay maanta dalkii jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya la oran jiray ma jirto aqoonsigu wax kaliya naga maqan maaha waxa weeye danbaan labadeennaba in loogu jirtaa marka hal la gaaro waqtiga inuu isla fahamno mar walba dee fahamkiinu xaggeena ka yimaada ma Sacuudiga baan ugu qabaa 60kii baan Soomaaliland iyo xanta laga sheekay marka waa inuu yimaado waqti la isla fahmi karo markaas uu container kaana kulli la jabin doonaa bay la tahay mid bamar ha laga baxo waayahay laakiin waxa jira qodob ay ka dhawaajeen dad badani oo ambassador Mahigan ku jiro oo dad badan oo madaxina oo ku jiraan oo aan xitaa Somaliland u dhalan
dhammaantood waxay yidhahdaan waa in xidhiir la yeeshaa Soomaaliya dadka degan ama ka taliya waayo dana badan baa iska kan xidhan waxa uu ambassador Mahiga markii aanu la yeelanay waraysiga uu sheegay in ay u baahan tahay Somaliland inay xiriir la yeelato Soomaaliya si ay ugu heshiiyaan inay u kala baxaan sidii Ethiopia iyo Eritrea, Czech, Slovakia iyo Indonesia iyo maartay yani marka waxaan miyaan ahayn in maxay tahay su'aasha ku celiyo mar kale inaynu halka leedahay marna iyaga baahan marna iyaga u baahan in la hadalo oo nidhaahno maxay tahay aan si walaaltinimo isugu nimi si walaaltinimo aan kala baxno maanta way habboon tahay sida uu dhigtay Siciid hadday saas jirto laakiin waxa weeye iyanu la hadlaynaa baa imanaysa dawladda ku meel gaarkii waxay ka talisaa magaalo qayb ka mid ah meelaha qaarna dee ururo kale oo adduunka bay isrinayaan baa ka taliya meelaha qaar oo dowlad goboleed 60kii dawlad la yiraahdo Italia Soomaaliya ku biiray iyo Somaliland protectorate ka isku biiray bal marka la helo sidii madaxweynuhu hore uga dhawaajiyay marka la helo dalkii la oran jiray Soomaaliya Talyaanigu ka kacay oo iswata waxba kama qabadaan walaal hay miyaanay ahayn in hadda la sii dhiso xiriirka oo lala sii sameeyo xiriir halkii laga sugi lahaa marka iyagu lugaa isku taagaan dabeetana lala hadli lahaa in la sii bilaabo miyaanay ka fiicneen hadda 22 sanadood aanu rabin inay ku digashay noqonaysaa inay ku digto walaalahay 22 sanadood inta soo madaxoodo isbedela hatta ma fili kartid maanta hadaynu inaan qoladan joogta halala sii hadlo waxa la sii dhiso bilaabo xaray 2-3 bilood baan u maleynayaa baa xaray marka waxa la leeyahay isku ogaataan marka la helo dad ay doorteen dadkii Soomaaliya Itaaliya deganaa sida Somaliland ama ay xusheenba doorasho kaliya maaha adoo soo xulaan sida baarlamaankii magaraysa bariga hore Somaliland kale loo soo xushay markii doorashada soo gaaray dad ay ama soo xushaan ama ay doorteen isku raacsan markaynu aragno oo kala ahayn galmudug Puntland xubin iyo xeeb Mareeg State iyo maasha Allah state oo soo socota ya de markaas uu la hadli doonaa okay waxaan ka rabaa inaan ku weydiiyo su'aal ku saabsan dawladda Djibouti oo runtii dad xiriir badan ka dhaxeeya Somaliland ay yihiin iyaga laftoodana xiddigta Soomaaliya ku leeyihiin maalmood madaxweynuhu waxa uu sheegay mar lala yeeshay oo journal la yeeshay African interview in aan ku degdeg Soomaaliya ku degdegtay ku dhawaaqista madax banaanida marka dadkuna waxay ka filayeen baan filayaa intii hore ka soo dhawaaday imaka maadaama madaxweynuhu sheegay markuu yimi in xitaa safaarad laga furay magaalada Djibouti iyaguna ay imanayaan mid furan doonaan waftina iman doonto marka bal mowqifka ka waran Djibouti ay taagantay ilaa maanta iyadoo aad ogtahay in adduunka la isbedelay oo la jimciyada qurba ka dhaxaysan isbedeshay Djibouti dalka isugu horbedelay Siciid oo ahay sida loo tarjumay ama hadalka madaxweynaha saxaafaddu u dhigtay ayaa qalloocda Djibouti waa dal ay maanta xukuumadda jirta aad iyo aad isugu tiirsan yihiin isla jaan qaadeen laakiin waxa weeye madaxweynaha hadalku bixiyo waa talo sida ku fiicnayd buu ka hadlay malaa waxa ku fiicnayd iyagoo sugay laakiin madaxweynuhu cidii sugaynaa uu garanay markaa iyo halka ay gali doonto muu oran marnaba gooni istaag Somaliland muu oran wax dhici kara maaha ama yeen dhicin wuxuu ka hadlay madaxweynuhu Somaliland intaanay dawladnimada ku dhawaaqin inay wada hadlaan bay ahayd dalkii ay wax wada lahaayeen waa mid macquul ah hadii jirto laakiin madaxweynaha Djibouti anigu mar walba ixtiraam baan u hayaa gurmadka wuxuu taa walaalaheena Soomaaliya ama koonfurta loo oran jiray waxay gooraal u gurmadu isku day 1 iyo 2 iyo 3 buu dawladda u dhisay wuxuu baa socon waayay isugu la dadaal innagana marnaba inaga mu gacan la'ayn imikana aad iyo aad buu Djibouti isugu loona kulli anigu intaan ka war hayo waana ku ixtiraamaya waxaana leeyahay saxaafaddu ma si khaldan u tarjuntay oo soo qaadato inta yar gooni soo qaadatay hadalku ka badnaa madaxweynuhuna talaabo imakayna siinaya inagu qarana maraan magaceena ku dhawaaqi jirin waa la soo maray iyada safaarado ama xafiisyo wakiilo badan ayaa adduunka Soomaaliland u jooga
hargeysana qaar baa dalalka lagu soo dirtay oo jooga Djibouti haddii aad saa sheegtay ay Somaliland isugu dhow yihiin maxaa ka hortaagan inay xiriir la yeelato oo ay keensato maamul xafiis ah oo hargeysa ka samaysan anigu waan rabin inaan afkii dowladda ku hadlo oo dee dowladda Somaliland ay ka hadashay xiriir dowladeed oo gaarana aan haynin haddana waxaynu ka warhaynaa in uu socdo processkaasi labadii xafiis bana la magacaabay howlgalkiisuun baa hadhay waan gartay hawshaas siyaasadda dibadda iyadoo aan rabo inaan halkaa ku ekaysiiyo waxaan rabaa inaan si degdega ku weydiiyo waqtiguna uu iska kooban yahay su-aalaan weydiiyey Dr. Mahiga Augustina Mahiga oo ahayd UN-ta maxaa uga meel yaala ama wax ma uga meel yaalan ah haddii siduu sheegay markay Soomaaliya caafimaado la wada hadli doono dad badan oo reer Soomaaliya ah ayaa hal jeer ku taama inay weerar ku yihiin ama weerar ku soo qaadi doonaan Somaliland dagaal ka dhex dhici doona Somaliland iyo Soomaaliya marka wuxuu igu yiri fikradaas naguma jirin laakiin imika waanu ku xisaabtami doonaa marka adigu ka aqoon-yahan ahaan maxaad kula tahay wax loo baahan yahay ma tahay in ciidamo Afrikaan ama ajnabi la keeno xuduudda u dhaxaysa Somaliland iyo Soomaaliya ilama aha laba hablood oo yar oo jiro isu faanay bay mid jiri hooy iblaayo sidaad yeeli cirka soo dumayay halkaad ka geli waxaad tii kala halkaad ka gashaan ka geli doona Soomaaliya iyo Somaliland in ku filan dhibaato way soo arkeen dagaalana way soo arkeen mashaakilaadna soo umaleyn inuu ku soo degdegayo inuu ninka gurigiisa ku soo doonto waayahay haddaba taas halkaasaan kaga baxaynaa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo shaqaaqadii iyo dhibkii ka dhacay meesha la yidhahdo Saameel gabiile iyo dilo u dhaxaysa dad badan ayaa runtii aad ugu xumaaday wixii meesha ka dhacay dad badan waxay ku tilmaameen in farad shisheeye ku jiraan oo nin Somaliland ahay ama asliina waxa sameeynin adigu aqoon-yahanada maxaad u malaynaysaa wax meesha ka dhacay wax loo kala baamis oo wax banaanka laga soo abaabulay horta waxa meesha ka dhacay waa wax fool xun waana inuu tacsiinayna guud ahaan cidii ku dhimatay ilaahay u naxariisto inaa ilaahay wa inaa ilaahi raajicuun raguna horta wuxuu rag siciid u siisaba ku yahay mushkiladda in la xalliyo markay dhacdo iyo hadday soo socoto laga hortagi kara labadaba u malayn maayo gacan shisheeye inay ku jirto waxaanan u arkaa arrin ku kooban ardaa wada dhashay oo isdhalay oo dhib iyo dheefba wadaaga Somalilandna ardaa kasta oo waa tii tacargaaba la xalinay maanta dhooto tii kalshaalo ka horreysay baad ogeyd ardaa Somaliland waxa ku caana maashay ama inta ku joogta waxa weeye wixii ka dhex dhaca ummadda wada dhalatay ah ayaan la buunbuunin waxa la buunbuunintii siyaasadinta laga daayo xal laga gaaro waan gartay daawadayaasheeda qiimaha badan oo intaas ayaan ku soo gabagabeynaa wareysigeennii gaarka ahaa ee aanu la yeelanay injineer Ismaaciil injineerka oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland Xaashi Ismaaciil intaasaan kusoo kaysiinaa iyadoo aanu qabanqaabinay annaga oo ah Harwanaag News iyo TV-ga caalamiga ah ee qaranka intaanu ku kulmi doono barnaamij kan oo kala waxaan iskaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaasheeda qiimaha badan oo halkaas waxaa inoogu eg barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu la yeelanay injineer Xaashi Ismaaciil oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland ee cariga Mareykanka oo aan ka wareysanay arrimo badan oo kala duwan sida siyaasadda dibadda iyo arrimaha gudaha iyo sidoo kale dhibaatooyinkii shaqaaqooyinka ka dhacay maalintii dhaweyto meesha loo yaqaano Seemaal daawadayaal waraysiga waxaa idiin qaadayay anigoo ah wariye Siciid Jamaal waxaana si wada jir usoo qabanqaabiyey Harwanaag News iyo TV-ga caalamiga ee TV-ga qaranka ee Somaliland intaynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kala dhageystayaal waxaan ka tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh